kulan wacan daawadayaal meel walba caalamka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena wararka ee sirdoonka ee siyaasadda. Qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa kamid ah booliska magaalada Muqdisho oo xabad ku kala eriyay banaanbax ka socday magaalada Muqdisho oo dawladda looga soo horjeeday. ururka al-shabaabna waxa ay sheegteen in ay xildhibaan ka tirsan Hiirshabelle gaari kala degan kadibna toogteen. dawladda Turkigana waxa ay soo saartay gantaal casri ah dunidan maanta jirta. dawladda Soomaaliya oo iska diiday hub ay Masar ugu deeqday Soomaaliya si ay ugu iftiimiso khilaafka kala dhaxeeya Itoobiya. qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan. u diyaar garooba barnaamijka oo fidsan. aynu ku horeysana ciidamada booliska dawladda Soomaaliya ayaa xirxiray qaar ka mid ah dad horkacayay banaanbax looga soo horjeedo dawladda Soomaaliya oo saakay ka dhacay taalada daljirka Daahsoon ee magaalada Muqdisho. ciidamada ayaa is-hortaag ku sameeyay wariyaal duubayay banaanbaxa waxaana laga qaatay qalabkoodii warbaahineed. dadka qalabka laga qaatay waxaa ka mid ah howlwadeenada ka tirsan telefishinka Universal. qoraal goordhow telefishinka Universal uu soo dhigay barta Facebook ayaa waxa uu ku sheegay in ciidamada boolisku ka qaateen qalabkooda ka mid ah wariyaashoodana loogu hanjabay in la dilayo. dadka ciidamada boolisku xireen ayaa waxaa ka mid ah gudoomiye hore ee degmada Cabdicasiis Cusmaan Muxyidiin Cariif iyo laba qof oo mid ka mid ah dumar ahayd. wararka qaar ayaa sheegaya in dadkaasi la jir dilay ayna ciidamadu adeegsadeen rasaas ay ku eriyeen. haddana waxa uu dhinac kale yahay mid saameyn badan leh xilli xaaladda siyaasadeed ee dalka ay cakiran tahay oo la isku khilaafsan yahay doorashada sanadka 2020 iyo 2021. ciidamo boolis ah oo aad u hubeysan ayaa la soo dhoobay fagaaraha daljirka Daahsoon ee degmada Boondheer ee magaalada Muqdisho waxaana wadada dhinacyadeeda taagan gaadiidka dagaalka. aynu inta kaga gudubnaa wixii wareey ku soo kordha waxaad ku daawan doontaan wararkeena dambe. warar dheeraad ayaa ka soo baxaya xildhibaan ka tirsanaa maamulka Hiirshabelle oo maanta lagala dagay gaari uu la socday isla markaana lagu waramayo in lagu dilay duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. qaar ka mid ah ehelada xildhibaankaasi oo lagu magacaabi jiray Maxamed Maxamuud Siyaad ayaa xaqiijiyay in lagu dilay marxuumka deegaanka Yaaqle oo hoostaga degmada Balcad. kooxda khawaarijta al-shabaab ayaa sheegatay in ay fulisay dilkaasi waxayna shaacisay in ay dagaalamayaashooda ay kala dageen marxuumka gaariga uu la socday. mas'uuliyiin ka tirsan Hiirshabelle iyo gudoonka baarlamaanka maamulkaasi ayaa durbo ka tacsiyay geerida xildhibaankaasi. ammaanka jidka dheer ee xiriiriya Muqdisho iyo Jowhar ayaa muddooyinkan ahaa mid aad u liita waxaana inta badan weeraro ka fulisa kooxda argagixisada al-shabaab iyadoona weeraradaasi qaarkood lagu dilay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hiirshabelle. atay daawadal hadii aynu qodobka inta kaga gudubno iminkana Turkiga. dawladda Turkiga ayaa farsameysay gantaal badeedkii ugu horeeyay kaas oo la yiraahdo Atmaka. waxa uuna ku guuleystay tijaabadii lagu sameeyay isaga oo ku biiraya hubka ciidamada badda Turkiga sida uu sheegay madaxa SSB Ismaaciil Demir. Atmaka wuxuu duqeyn karaa masaafo dheer wuxuu garaaci karaa bartilmaameed jira in ka badan 200 oo kiiloomitir ayaa uu Twitterkiisa ku qoray Ismaaciil Demir madaxa SSB. gantaalkan loogu talagalay difaaca badda oo maraakiibta lagu xirayo ayaa masaafo dheer waxa uu wehelisa in ay adag tahay in ay qabtaan raadaarada isla markaana waa gantaal shiishka loogu talagalay aad u haleeli kara oo bartilmaameedkiisu uu aad u sareeyo wuxuuna qayb ka qaadan doonaa xuduudda badeed ee Turkiga sii kordhaysa isla markaana wuxuu ka qayb qaadan doonaa xuduudda ciidamada badda ee Turkiga ee sii kobcaysa. gantaalkan markab dilaha ah oo farsamadiisa la bilaabay 11 sanadood ka hor sanadkii 2009 waxaa markii ugu horeysay la tijaabiyay November sanadkii 2008 iyadoo ay deeto soo saaristiisa ku heshiiyeen SSB iyo Rocketsan isla sanadkii 2018. Atmaka oo ah nooc la hago ee casriga ah ayaa loo adeegsan karaa jawi kasta wuxuuna gaari karaa bartilmaameedyada neg iyo kuwa socda taas oo ay ugu wacan tahay isaga oo leh qaab uu isaga caabiyo tallaabooyinka lidka ku ah. waxaa farsamadiisa gacan ka geysanaya shirkadda kale oo Turki ah sida shirkadda Aselsan oo sameysay meesha laga geynayo halka meesha laga xukumayo ay sameysay shirkadda daraasada badda ee sida shirkadaha daraasadaha Armercom. gantaalkan ayaa gaari kara ilaa 250 kiiloomitir wuxuuna dul haadayaa biyaha isaga oo joog hoose ku duulaya taasoo saacidaysa in aan la arag isaga oo bartilmaameedka ugu dhici kara joog iyo jiifba. sidoo kale maadaama la hagayo markii la doono sare ayaa loo qaadi karaa oo waxaa lagu wadi karaa joog sare
waxaa kale oo la bedeli karaa jihada uu ku wajahan yahay haddii la doonana waa laga wareejin karaa gebi ahaanba isaga oo aan lagu wareerin karin jaamgarayn danabeed oo lagu jaha wareerinayo gantaalka halka uu ku socdo. waa tahay daawadayaal qodobkaasi aynu intaa kaga gudubno wixii kusoo kordha waxaad ku daawan doontaan wararkeena dambe. dowladda uu hogaamiyo kaligii taliya Cabdulfataax al-Siisi ee dalka Masar ayaa Soomaaliya u bandhigtay in ay siiso dayuuradaha sida hubka fudud kaasoo loogu talagalay in uu Soomaaliya soo gaaro bishii Maarso ee la soo dhaafay. hubkan oo ka kooban 2,000 oo aake qoryaha gantaalaha laga tuuro kuwa wax lagu shiisho bastoolado iyo hubiyayaal ayaan marnaba Soomaaliya soo gaarin. waxaa joojisay dowladda Soomaaliya sida uu sarkaal sare u sheegay wargeyska Sunday Telegram. waxay Muqdisho sidaa u sameysay iyada oo diidan in ay ku lug yeelato muranka u dhaxeeya labada dal ee Afrikaanka ah. Masar oo sanado badan ahayd awoodda koowaad ee ka macaashta biyaha webiga Niilka ayaa diidan in ay ka faa'iideystaan dalalka uu ka yimaado webiga Niilka oo ku yaala bariga iyo geeska Afrika iyadoo ay Soomaaliya dareensan tahay in ay Masar colaadda soo jireenka ah ee Soomaaliya iyo Itoobiya u adeegsato gaarista danaheeda qaran iyada oo isku mashquulisa labada dal. hubkan ay Qaahira Soomaaliya siinayso ayaan wax badan u taraynin Soomaaliya marka laga reebo in uu yahay mid iftiiminaya kaalinta ay Soomaaliya ka ciyaarayso khilaafka u dhaxeeya Itoobiya iyo Masar. hubkan ay Qaahira dhiibayso ayaan wax badan u taraynin Soomaaliya marka laga reebo in uu yahay shitaarid Addis Ababa ku aadan oo daaran in ay Masar Muqdisho ku soo hubaynayso markii ay doonto taas oo aysan sidoo kale Muqdisho dani ugu jirin. waa tahay daawadayaal wixii war ay ku soo kordha waxaad ku daawan doontaan wararkeena dambe. intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena wararka isha sirdoonka ee siyaasadda oo ka daawanayseen Cali Xildoon channel. tan intaan warka xiga dib u kulmi doono sida ay nabadgelyo.